والله أول مرة أنا وحنا هاي قف إسقيس كصوب قارهان بيش عص أيام وحنا مهرد أيام ما تقولها صندوق ديار أيام السنين جرتي صندوق داس وحنا كوجا دينجري بغاش أيام كوجا دينجري صرفنا قيمنا صرف أيهات قيمنا بغاش أيهات الحمد لله رب العالمين أنا وحن إلهي سيء سجال عرورها يا إلهي سيء أفر ويل يا مارتي شن قبل يا إلهي سيء مارتي الحمد لله رب العالمين المهاس قار كمد اسكولات دكسية سرير دكتان قار كمد الحمد لله رب العالمين جامعة قار دكسية القرآن كأي دكتان الحمد لله رب العالمين وحنكون مارين جري نرش أنا إياه المهاس مارتي في جودة مارتي الحمد لله المهردي داس المها واحد جري لبا ورونا أو مارتي مريم عمر حاج محمد بشير عمر حاج محمد لبداس oo maartay igu caawini jiray shaqada maadaama aan ahay qof oo disable ama qof naafa aan ahay oo aan xoog lahayn alxamdulillah labadoodaas iskool dhigan jireen labadooda mid wuxuu dhigan jiray Bashiir Umar Xaaji wuxuu dhigan jiray iskoolka almasal waa bari ayuu dhigan jiray oo maamulaha uu ka yahay ustaad Rooble cadaanteedii iyo waxa dhan xataa waa keensan karaa imtixaan abu Sacuudi sabtidii ayaa imtixaankii waxa uu bilowday تارمك المثل امتحان كي تارمك أيو قلي سيد عادة إنه أهان جرتي ويل كاس صباح دي أروته هراء مارته وأسديارين جرني أنا جي أسقبه صباح دي لبي ترونك سعوك سو دم جري مارتي مهردة وإيه حاقي جري وإيه مارته هذا جنجري كدبنا وإيه ما جري مركو أسقي قبل سول لبستو أيام إسسور عجرني مهردة أيام مارتي مر فريسين جري أنا جا مارتي ماشي فرين جري وكشقين جري isagan in madrasada ayuu aadi jiray madrasada markuu aado 7 saac oo kale markuu ka yimaado maartay suuliga gali jiray oo qabaysan jiray salaada duhurka iska bixin jiray kadibna uu qadeyn jiray anuu iimaan jiray 8 saac ama 8 saac ayuu iimaan jiray 8 saac markuu yimaado hadda aniga hal saac iyo bar maartay fadhi ilaa 8 saac iyo fadhiyaan ahay waan daalanahay isaga ay bedeli jiray 8 saac iyo marka aniga guriga iimaan jiray anagu waan qabaysan jiray maartay alxamdulillah salaada iska bixin jiray waan qadeyn jiray wax yaran maartay siixan jiray casarkii oo kale aan soo kici jiray maartay waan weesaysan jiray salaada casar markaan iska bixiyo yaan hadana dib ugu laaban jiray anigoo marka asaga u fiirnayo waxaan dhihi jiray iska laabo aabo aad maartay guriga imaan jiray wax yaro siixan jiray maqribiis oo casharkiis oo aqriyo xilligaas markaan aniga tago ilaa iyo saacadaha maartay sagaalkii barkii ama 3 saac bar sida dadka Soomaalida mid u yaqaanaan ayaan ku gaari jiray 3 saac bar hadii la gaaro waa iska xiri jiray alxamdulillah gabadhan alxamdulillah iyadan waxay ahayd caanaha ayay maartay mahradeeda horteeda ayay caanaha ku kadi jirtay si ilmaha caanahooda aan ugu soo dhaxsano iyadan xiliyada markii iskoolka laga soo daayo albilaad ayay dhigan jirtay markii madrasada laga soo daayo iyadana way qabaysan jirtay salaad doorkeed ku jirtay way qadeyn jirtay markay qadeysay 8 saac oo kale ama 8 saac bar oo kale ayay iimaan jirtay markay timaado alaabta ayay dhaqi jirtay caagidii oo maartay caanaha lagu doonay waxaas adiga 9 saac iyo bar oo kale ayay meesha ka tagi jirtay caaniga raadin jirtay 10 saac oo kale ay caanaha keeni jirtay way xiri jirtay ilaa iyo maqribihii gabar kale jirto iyadana maartay alxamdulillah oo iyadana hadda ka baxday dugsiga sare taas marka iyadana soo bedeli jirtay oo xaawo Umar Xaaji idan loo ilaa ay habeen 2 saac iyada samaartay joogi jirtay marka sidaas ayaan isku bedeli jirnay oo maartay waxaan ahayn dad oo maartay igu caawinay ahaayeen maartay ilmaha inta badan waxay ahaayeen dad naafi ahaayeen ilmay in yara maartay alxamdulillah ilaahay ii badbaadiyo oo dad lixaadkooda taam ilaahay iga dhigay marka dadkii lixaadkii taamka ilaahay ka dhigay ay kamid ahaayeen labadan hadda oo maartay oo meesha ku geeriyood oo Bashiir Umar Xaaji Maxamed iyo maartay Maryam Umar Xaaji Maxamed sabradoodana waa haya labadoodii meesha qaraxi ayaa haleelay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodiina laana waxa way meeshii aan fadhiyay bisha cas iyo maartay safari inta u dhaxay ayaa gaariga isku baaqimay oo qarax ku sameeyay marka raqdoodii iyo ruuxdoodii ayaa la waayay gaariga qaraxi ayaa u dhawaa aad ugu dhawaayeen macna albaab darbigii bisha cas ayaaba dumay hadda waa iska garan kartaa marka darbigii meeshii uu ka dumay maartay dukaan yaro meesha ku yaalo sanduuqada yani in maartay hadii ilaahay ku ron yahay oo meesha qofkii taagnaa inuu soo nolol aan lagu xisaabin labadoodan ilmaha dhashay ugu weynaa iyaga ugu rorona oo hadda dadkii tabarta galay oo aan
oo aan maciinayay oo shaqada ila qabanayay ayay ahaayeen dabcan waa dhacdo xanuun badan meesha dad 300 qofood gaaraya wax ku noqday ama ku dhintay iyagana qayb ay ka noqdeen muxuu yahay marka hadda maxaad dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ba ka dalbanaysaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan hadda meeshan u imid wax kale ma aha maadaama gurmadka qaranka uu ku qoran yahay dowladda xarunta qaranka ee gurmadka degdega uu yahay oo sida hadda aan ku arkayo maartay sawirka waxaan u imid in dhacdaas oo maartay oo aad iyo xanuunisay awal marra yani waa laba dhibaatada hore waa maartay alxamdulillaah meeradeedii oo aan waayay dhaqaalihii yani oo meesha lacagtii aan ku shaqaysanayay iyo maartay oo meesha aan ku waayay awal marra ثانيا ilmaheygii oo qaaliga ahaa oo meesha aan ku waayay oo ugu saaciday shaqada ugu saaciday maadaama aan ilmihii aan meesha ku waayay taas ilmaha hadda wax soo celin karo ayaan jirino maartay kullu nafsan daa'iqatul mawt waa qof walba yani alxamdulillaah waqtigu leeyahay oo ku dhimanayo ilmahaas hadda soo celinteeda idinkugu imaanin oo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin waxaan idinkugu mid maadaama dowladdii aad tihiin in arrintaas iyada ah iyadoo la qaybsanayo aniga maanta alxamdulillaah ilmaha kuwa kale wax qabanaya ay ahayn ninkaas alxamdulillaah oo naafada oo gaariga lagu riixayna aan ahay in oo dowladda ay wax igala qabato oo maartay saacidaad aan ka helo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda waxaan meeshan u mid waxaan fariinta gaarsiinayaa madaxweynaha oo u horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu ku xigo ra'iisul wasaaraha cali khayre oo ku xigo in wax ay iga qabtaan